سيدا درت يدبر رسولك عليه الصلاة والسلام وحليها استعينوا بأموركم الكتمان وروحي إلهي وهبة إذين سيئي مالك وكلي ما هنا وحي إلهي هبة إذين سيئي قرصدا لأن لكل نعمة فإن لكل نعمة حسود نعمة كستو إفكتا الله عد أمبا كيو أتو محروقه حاسد كوة مركا نعموين كين هذه كير أسترطة أي النبي عليه الصلاة والسلام marka ruuxu had iyo jeer quruxdiisa iyo awoodiisa iyo aqoontiisa iyo cilmigiisa iyo inuu mar walba fagaarayaasha isla soo taago ma fiicna in badan waxa anigu aan arkay ilmo yar oo caruur ah intuu raqam waaxid ka galay iskuulka macallimiintii intay fagaaraha soo joojiyeen isla maalinta wixii laga bilaabo aqoontii ay ka masaxantay ama dugsigiiba aadi kari waayo aqoontiiba la nacsiiyay anigu waxaan goobjooga ku yar oo aan dhalay ayaa 3 jir ayuu caruurta ku raacay madrasadu aaday malcaamada markaa isagu ma dhigtay uu dhageystaa oo sidii soo dhageysanayay uu 5 jis caruurtii aqriyaysa ka xifdiyay dadkii baa yaa wax ma sha Allah ila markii dambe ilmihii madrasadii waan ku kari waayay caruurta hadduu raacana intuu ka leexdo gudaafad fadhiisanaya habeen kaliya 5 jisba maslaxdiisii ay ka dhiliid garoobeen habeen kaliya ay maskaxdiisa ka dhiliid garoobeen marka bahashan issue waa halis weeye waxaan uga hadlayaa aqoonaan u leeyahay weeye oo in badan way soo martaa marka qofka muslimka ahi inuu maxaasintiisa qarsado madaaristan ilmaha xayeysiiska looga dhigayna in laga daayo madrasadii buu rabaa inuu xayeysiis u samaysto ardaygii ugu fahmada badnaa ayuu soo joojinayaa meel fagaare dabadeedna markuu ka degaba masrixii ilmihii maaha markii buu isbedelayaa marka goorta haddii ilmaha shahaado la siinayo oo ilmahaagu uu ku yidhaahdo aabbow wankan galay ha u ogolaanin inuu isagu fagaara istaagay adigu u soo qaad xataa wixii la siinayo adiga waalidka intaad tagto wixii jaa'isad la siinayo wixii hadiyad la siinayo adigu intaad ilaahay cuskatooda aayaadkaaga iska akhristo u soo qaad laakiin caruurtiina fagaaraha keenina oo wixii ilaahay haybad siiyay yaan looga dhigin xayeysiis iskuulkaas caruurta si fiican wax u bara si loo yiraahdo darteed ba inta badan caruurta fagaaraha u keenaa hadhowna waxaan xasuustaa waqtigii siyaad bare Sheekh Cabdirashiid Ali Suufi baa wuxuu kaxeeyay inaan 7 jir buu ahaa Sheekh Ali Dheera uu ahaa nin garanaya waxa la geeyay Sacuudiga سعودي قال لقي صدق القرآن كعالم كيسجى رقم 1 قاتل عالم كورة تدبشر باي الماس مركي دم ماشي لجسوا عليه ماذا حبب برا كصوب حضي المهيرة ماذا حي برا كصوب حضي عالم كورة باتي في قلة قدامني رقم 1 كون نقضي مركا لأن فإن لكل نعمة حسود نعمة استاذ حاسد باي الله ضهاي marka hadii ilaahay nicmo ku siiyo nicmat almaal ama nicmat alilm ama nicmat alquwa والنشاط ama nicmat alawlaad ama nicmat aljamal haduu ilaahay ku siiyo asturo lagu lama qabo asturo hadii kale waxaan hadhow mahadinaynin baa kaaga iman doona waana tawina barayo nabi ilaahi yaqub alayhi salatu wasalaam uu leeyahay maandooyinow markaad meesha tagtaan idinkoo sunsumaya oo 12 nin oo degeedka wada laaleega atihiin albaab kaliya ha ka gelina wadkhulu waxaad ka gashaan min abwaab mutafarriqa albaabo kala duduwan ka gala waa sirta nolosha hadaanad quraanka kala soo bixi karaynin waxa tayn ka مثل الحمار يحمل أسفارا قرآنكني طب النبوي هي طب المادي هي طب الروحاني انتبهوا بالسجود فكان نبي الله يعقوب كبرت 10 كانوا ينبريو وتحدر عن العين عينته إنا تكفي جناته ما كان صالح هي مر والبده هذا يعني عبسي ومر والبها عبسنن مر والبها عبسنن أديكو إلهي اسكحنا يا أسبابتي اللي حجابنا يا إيش الله كاله وأذكرت الصباح أذكرت مساء يويسدا يا صدقة waxa ugu fiican cudurka lagu daweeyaa waxa weeyaan sadaqada iyo
صلاة لبدا روح هدو إلى شدو ولا عين بان كرين ولا سحر بان كرين بري باوحا أنا ذكي رشاكي naag waxa ay timi naag baa ay timi waxa iga sheekaysay naagta kale uga sheekaysay ninkeeda ayay doonaysay inay sixir maxaba ah u samaysato oo uu jeclaado sixir maxaba bay u samaysanaysaa mid sixir roola ah ayay ma islaan sixir roolay ah ayay 4 jeer ku noqotay way leedahay ilaa hadda wax isbedela ninkii kuma hayo markii dambe islaantii wareysatay waxay tilmaahayeen bal ninkaaga iiga waran sidoo ku yahay weysada markaas waxay tiri haddii uu guriga ka baxayana weysu ku baxaa haddii uu seexanayana weysu ku seexdaa islaantii sixiroolayda waxay tiri ninka ha ku daalin waxba la helimayna ninka ha ku daalin waxba ma qabadsiin karre waxaa aniga ii yimi nin ay rag isqabteen oo ay sixir u xidheen oo ay qabadsiin kari waayeen maalin galab galbaha ka mid ah ayuu meel tuulo ah buu ka carraabayoo gurigoo meel yaro fog ayuu u carraabay burca la igu keenay yuroba markaan deganaa ninka deedna markuu salaaddii maqrib tukaday ayuu ul yaro leexday meeloo uu kaajay oo iska bi'iyey uu dhaqaaqay mar allaaliya markay weysadii ka jabtay ayaa gantaal waxaynaan nabarba halkaa kaga dhacay aan muuqanayn ninkii wuu sooxay warqadii dambe ayaa dadkii waddada marayay ay soo heleen isagoo koomo ku jiraa la ii keenay markaan qur'aankii ku aqriyey ayay wax ka dhaxadleen jimankii la adeegsanayay sixirroolayaashu marka waxay yidhaahdeen intaasoo sannadood baan daba soconnay oon jaanis ka weynay galab caynkaasa ayaanu halkaa ka helo markaasaanu gallay hadhow markii ilaahay uu ka saaray wixii ayaan warsado waxaan ku yidhi galabta caynkaa iyo caynkaas ahayd markaad carrowday halkeed kaadida ugu leexatay halkaa markii aad kaadida u leexatay aad iska biisay wixii ka dambeeyey maxaad ka xasuusataa markaan kaadidii ka dulkacay aan iska biyey baa war iigu dambeysay bay guuri baa war iigu dambeysay qiso kale oo aniga laftayda ila kulantay nin baan 8 maalmood quraan ku aqriyay waana la sixray jinkii ku jiray ee camiilka uu ahaa sixir roolaha ayaa markaa wuxuu ku hadlaya carabka ninka 8 maalmood baa wada hadal noo socday qiso dheer bay noqonaysaa waqtiga naga qaadasay jinkii markaa wuu muslimay jinkii sixrooluhu soo dirtay martiini baa la oran jiray magaciisa magaca baan ku yidho martiini baa la yiraahdaa markaasa casarkii dambe ayaa nintaan suuliga galay aan soo istijaystay baan soo noqday anoo weysiisan waan ilaabay waa markuu muslimiinta ka bacdi markaasaan quraankii ku bilaabay wuxuu yidhi waryahay maxamed hee war orada soo weysiiso markaasaan ku yidhi war waan weyse qabay maxaad u jeedaa war wallaahi ma weyse qabtid war soo weysiiso hay markaasaan xasuustay inaan weyse qabin waan kacay markiiba waan soo weysaystay markaan soo noqday waan ku yidhi martiiniyow maxaad ku garatay inaan weyse qabin waxaan ku gartay wili difaacaaga jilicsanaa haddaan gaalkii ahaan lahaana waan ku dhaawici lahaa haddaan sideedii gaalnimadu u haysan lahaa wax allaale wax iga kaaxigay ma jirin difaacaaga adkaa marka weysadu waa difaaca waxaana la yidhaahdaa alwuduu silaaxu lmu'min weysadu waa hubka mu'minka haddii aad dagaal ku jirto ood intaad hubka dhigato aad cadowgii afka uga gasho maxay kugu samaynayaan way ku xidhxidhanayaan way ku garbaduubayaan marka alwuduu silaaxu lmu'min waxaan tajribaynay weysada iyo jamaca salaada iyo sadaqada saddexdaa maado wax uga baawar weyn daaweynta xanuunada sixirka iyo isha iyo xasadka maanu arag weysada iyo salaad maxaan ku idhaahdaa sadaqada
iyo jamca salaada saddexdaa maado wax uga awood badan saddexdaa difaacooda maan arag anu intaan baabkaa ku dhex jiray maantana wuxuu nebiyullaahi yacquub ina barayaa inaan waxeenna iyo awoodda ilaahay ina siiyo dheeraadka aad haysatiyo mawhubada ilaahay ku siiyey inaanad ku goolaaftamin oo aanad bannaanka soo wada dhiganine aad isla gaabiso wixii ilaahay nicmo ku siiyey wuxuu ku yidhi markaa nebiyullaahi yacquub wadkhuluu ka gala min abwaabin mutafariqa albaabo kala tagsan ka gala anigu haddaan yacquub ahay buu yidhi wamaa ugnii cankum idinkama kaafin karo xaggiinna min allaahi shay-an anigu ilaahay idinkama celin karo laakiin asbaabtaan la imanaya in ilxukmu xukumka uma sugnaanin ilaa lilaahi ilaahay baa guddoonka iska leh xukumka ilaahay baa iska leh wuxuu xukumana anu ma celin karo laakiin ka waalid ahaan iyo ka caalim ahaan ka nebi ahaan intaan ogahay inaan annagu asbaabta la nimaadnaa nala faray calayhi tawakaltu ilaahay baan isku halleeyey oon tala saartay wa calayhi ilaahay korkiisa uunna falyatawakal ha tala saarto almutawakkiluuna ciddii wax tala saaranaysaa tala